kula wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada Awow Media warbixintan waxaan uga hadli doonaa Yaxya Sinwar hogaamiyihii weynaa ee kooxda Xamaas oo saacadihii ugu dambeeyay la hadalhayay in duqeyn lagu dilay haddaba kuma ahaa Yaxya Sinwar waxaan ka naqaan taariikhdiisii dheereed ee ku suntaneed halganka la dagaalanka Israa'iil. Yaxya Sinwar waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu saameynta badan Xamaas gaar ahaan garabka military ee Saraya al-Qudus. waxa uu ku dhashay Gaza sanadkii 1962. Yaxya Sinwar waxa uu ka soo jeeday qoys danyar ah oo ku noolaa xero qaxooti isagoo ku soo barbaaray duruufo adag oo qaxootinimo. Yaxya Sinwar waxa uu si firfircoon ugu biiray Xamaas dabayaaqadii 1980. wuxuu caan ku noqday taageeridda dagaalka hubeysan ee ka dhanka ah Israa'iil. sanadkii 1989 waa la xiray iyadoo lagu eedeynayay markaasi inuu qayb ka ahaa dilal qorsheysan, waxaana lagu xukumay xabsi daa'im. intii uu xirnaa waxaa la sheegay inuu lahaa saameyn weyn isagoo maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee kula xirnaa xabsiga ka dhex sameeyay shabakado xiriir leh oo markaasi ka midaysan la dagaalanka Israa'iil. hase yeeshee sanadkii 2011 ayuu dib u helay xorriyadiisa kadib heshiiskii maxaabiis isdhaafsiga ahaa ee dhex maray Xamaas iyo Israa'iil. Israa'iil ayaa heshiiskaas ku sii daysay 1,027 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah halka Xamaasna ay sii daysay sargaal Israa'iili ah oo la oran jiray Gilad Shalit. maxaabiista la sii daayay waxaa ka mid ahaa hogaamiyaal waaweyn sida Yaxya Sinwar, waxaana qodobada lagu heshiiyey qaar ka mid ahaa in maxaabiista la sii daayay qaarkood ay dalka dibadiisa ku noolaadaan. inta uu hoggaanka hayay Sinwar waxa uu door muhiim ah ka ciyaaray dagaalada ka socda marinka Gaza. wuxuu ahaa sida la sheegay maskaxdii ka dambeysay weeraradii waaweynaa ee sanadkan iyo sanadkii horeba lagu qaaday Israa'iil, iyadoo Xamaasna ay weeraradaasi ku tilmaantay kuwo aargudasho ah oo daba socday duqeymo Israa'iil ay ku qaaday Gaza. weeraradaas oo sababay in dad aad u fara badan ay ku dhintaan kuna barakacaan. Sinwar waxa uu caan ku ahaa go'aanada adag iyo dagaalka aan leexashada lahayn ee uu kula jiray Israa'iil, isagoo markaasi xiriir dhow la lahaa Iiraan iyo xulafada kale ee iska caabinta. wuxuu ahaa qof aaminay oo kaliya in xoog lagu gaari karo yoolka Xamaas ee ah soo afjaridda joogitaanka Israa'iil, taas oo hogaamiyaasha saaxiibadiisa qaarkood ay ku kala fikir duwanaayeen, kuwaas oo u janjeeray dhinaca diblomaasiyadda, taasoo sababtay in uu markaasi sii ahaado hogaamiye weyn. waxa uu diiday heshiisyo badan oo nabadeed oo loo soo bandhigay sanadihii ugu dambeeyay ilaa uu ka dhintay. geerida Yaxya Sinwar waxaa lagu tilmaamay dhacdo taariikhi ah oo